waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Midda labaad waxaan la hadlayaa beesha reesade aan la hadlayaa waliba waxaan la sii hadlayaa beesha reesade oo degta gobolka Gado. Axmed Madoobe ciyaartii aan koobka u keenay ka bacdina naga soo tagay hadal ma aha. Axmed Madoobe ninkii shalay asaga intuu ina laayay Kenyaatiga ingu soo kaxiyana waa tihiin dad caadi qaatiyana waa tihiin dadka ku nool gobolka Gado iska daaya damiir la'aanta ha cabaadinina YouTube-ka ha ka cabaadinina anigu naaguma reexaanaanahay waxaan ka imaado gobolka Mudug anigu Mudug ana jooga maanta caadi qaatinimaas ma qaateen kawde ummadda mareexaan ee ku nool gobolka Gado cabaadka iyo qararacda iyo Axmed Madoobe naga tagay waxaas hayso ku hadlin Axmed Madoobe waa nin ciligiisa saaran qabiilku shalay bilaabay buuna taagan yahay mareexaanka Mudug waxaas ma qaadan karaan mareexaanka Gadana ha iska daayaan waxyaalaha ay ku dhaqmayaan shalay ayaga u socodsimayay markuu ka soo daganay gobolka Baladxaawo shalay bar waxay ahayd markuu Kenyaatiga saas ugu xasuuqayay naagaha mareexaan markuu dabada batay ka gurayay mareexaan waa joogay seeku kanta ila dawladda dhisataan siyaasa ku kantay in ciyaarta u dhalisaan oo goolka u dhalisaan war maanta hadii aan ciyaartay waxaan u ciyaari lahaa gobolka Puntland waaya asaga maanta ba ii qirin lahaa intaan u ciyaaray iyo mana soo tagay eelo boorka xamar damiir isku yaala dadka Gado joogow damiir ma lihidin maanta Mudug anigu aan ka imaaday ma qaateen saqiirka Mudugna ma qaateen waxaad ku dhaqantaan mara dhaanta u tuntaan iyo mara waxa taqaanaan aad shacabka u tuntaan waa ina qaanaa dhilooyin la lafdo